Assalaamu calaykum. Waxaad nagala socotaan sheeko show barta laga helo kaydka sheekooyin xikmada ku dheehan. Hadda ka hor waxaa jiray nin boqora, wuxuuna isugu yeeray dhammaan dadka xikmadda lagu tilmaamo boqortooyadiisa. Wuxuuna ka codsaday hal xikmad oo uu ku korqoro carshigiisa korkiisa, hal shardina ku xiray oo waa in markuu fiiriyaba wax ka faa'iida. Asoo u faahfaahinayo warkiisuu sii watay wuxuuna yiri: waxaan rabaa xikmad in dheergaradnimo ka muuqato, iguna jihaysa dariiqa saxda markay iga qalloocsan tahay, idhiirageliso oo niyadda ii dhisto markay iga jaban tahay, markaan faraxsanahay oo caada marayana inaa wax dulmiya iga ilaaliso oo xad ii yeesha. Dadkii xikmadda ku caanka ahaa iyagoo mid kasta goonidiisa u yaaban yahay ay kala dareereen, qof kastana qalinkiisa iyo warqadiisu isdul saartay asoo isweydiinayo sidee hal xikmad duruuf kasta munaasab ugu noqon kartaa. Waxaa la iska wada ogsoon yahay in xilliga dhibaato iyo murugo jirto u baahannahay qof niyadda noo dhiso, kor noo soo qaado, xilliga farxadda, barwaaqada iyo baraaraha jiraanna qof noogu tahniyeeyo oo xaalka inuu saas noo ahaado noogu duceeyo aynu u baahannahay. Muddadii la isku qabtay waa dhammaatay, waxaana la soo wada fadhiistay boqorka meeshuu isugu wada ballamiyey dadkii xikmadda lagu ogaa. Wuxuu marba qof kaco uu xikmad cajiiba sheego, kan kale waana la maqlin yiraa, laakiin nasiib darro maysan cajabnin boqorkii. Siduu mayada u gurayay baa markii xigtay waxaa isi soo taagay nin, wuxuuna yidhi: xikmaddayda waxaan dhan hubaal waa la dhaafi doonaa, ama kulligood waa la gudbaa. boqorkii baa qoraalka si u taabtay oo isha la sii raacay. Ninkii xakiimka ahaa oo xikmaddiisa sharaxaya baa yidhi: mudane, adduunyada uma suubsano, mana dhicin weligeed inay qof hal noocuun u ahaato, oo qofkii moodo siduu maanta yahay inay wax iska bedeli doonin waa qof wax badan ogeen oo khabar moog waxaa hubaal inay mar uun ku soo mari doonto maalmo aad u farxad badan, laakiinse la dhaafi doono, ayna wanaagsan tahay inaadan qof ku sii joogsan maalmaha aad caada maraysid. Sidoo kale waxaa arkay maalmo murugo darteeda qalbiga ku xanuuno oo dadka aragooda dhibsatid, laakiin waxaa hubaal in la dhaafi doono iyana. waxaa ku soo mari doono maalmo aad guul dareemi doonto, dadka kugu hareeraysanna ay magacaada si ixtiraam ku jiro u dhahayaan. haddana waxaa hubaal ha dhawaato ha dheeraato, iyadana waa la dhaafi doonaa oo ha ku sirmanin. hadduu ilaah nafta kugu dhaafo, waxaad arki doontaa adoo nolosha kor u socdo oo dad badan oo is ag fadhin jirteen dhaafay. laakiin haddana xasuusnow, sunnada koonkan aan ku wada noolnahay waxaa weeyaan wax kasta inay dhammaadaan oo la dhaafo. ninkii xakiimka warkiisa sii wataa yidhi: boqor waa ilaahaye. dadka qaarkood xikmadda muggeeda iyo micnaheeda hadday fahmi lahaayeen, laba waxba meesha waa ka bixi lahaayeen. waa koowe, dadka markay arrin ku adkaato oo dunida mugdi la noqoto, arrimahana isugu aadi waayaan, niyad jaba oo hamiga horu socodka ka lumo, hadday dhab u dareemi lahaayeen in dhammaan waxaan dhammaan doonaan, albaabada furmi waayeyna si kale u furmi doonaan, runtii way jafjafan lahaayeen oo dhaqaaqi lahaayeen. waa kuwa labaado, iyagana farxadda iyo nicmada ilaahay ku arsaaqay dhaqleys iyo kibir ka qaado, oo dulmiyo kuway ka awooda badan yihiin isla weyni iyo inuu adduunyada haystana ismooda. kuwaana waxay si dhaba ugu baahan yihiin inay ogaadaan intay goor tahay in la dhaafi doono sida lagu jiro, oo adduunyadaba u samaysan tahay farxad iyo murugo isbadbedelaan, sida habeenka maalin u badasho, maalintana habeen u badasho. markaabuu boqorkii intuu dhoola caddeeyey amray in xikmaddan aadka u soo jiidatay lagu xardho dhammaan meelaha iskugu yimaadaan shacabkiisa iyo qasrigiisaba, si qof kastoo xikmaddan arko u dareemo si alla saa tahay sii ahaan maysid. wax ma ku xasuusisay sheekadan? hadday xasuus ama marxalad soo martay amaba ku jirtid dib kuu xasuusisay, ama hami inaa gudbi doonto waxaa ku jirta ku gelisay, fadlan like dheh. haddaad nagu cusub tahay, subscribe channelka dheh, kana daawo sheeko show sheekooyin kaloo badan aad kuu soo jiidan doono.